السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعمركم أمها بعلنا يا لمان أخيار تشرفت له يسوء الجيب كلهم كان أن أوي أرني سيد وقتي نغاري أو نوورتين وتكون سنتين أنت أسكدب waxaan rabaa in kelimadeyda aan ku bilaabo mahadcelin guud. sanadkii 1993 deegaanka aan ka soo jeedno waxaa ka bilowday olole waxbarasho. raggaan odayaasha ah oo uu ka mid yahay Garaad Maxamed Sheekh Maxamuud iyo dhammaan odayaasha joogo waxaa weeye jaaliyadii qarashka iyo waqtiga soo geliyay in deegaankaas dadka ku nool ay noqdaan kuwa aqoon leh. xaqiiqatan waxaan aniga iyo boqolaal dhalinyaro ah ay ka mid yihiin dadkii deegaankaas waxbarasho free ah gurigooda ku helay. waqti Soomaaliya ay aaday dagaal sokeeye ayaa wuxuu deegaankaas diirro aaday waxbarasho iyo aqoon iyo waa cusub. dadku ma aysan wada haysan. dhalinyarada marka aan ka midka ahay waa inay dareemaan ahmiyadda arrinkaas uu leeyahay iyo sida dadkeennii iyo aabbayaasheen ay fikraddaas wanaagsan Ilaahay subxaanahu wa tacaala u waafajiyey. maadaama arrinkaas uu saas yahay waxaan rabaa hal tusaale inaan soo qaato ah Cabdullaahi Xaad oo wada taqaanaan oo raggii tacliinta deegaanka lafdhabarta u ahaa ka mid ah. markuu bilaabayay fikirkaas wuxuu maalin BBC-da ka dhageystay islaan haweeney oo da ah oo dal kale u dhalatay oo jaamacad dhamaysay oo leh waxaan rabaa deegaankayga inaan ka bilaabo olole waxbarasho. markii arrinkaas uu maqlay wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo dowladdii kacaanka dugsi sare ka dhameeyey. wuxuu marka isweydiiyey waxaa weeyo islaan haweeney oo da ah ayaa waxay ku fikiraysaa inay deegaankeeda waxbarasho ku celiso. maxaa adoo dhalinyaro ah kaa hortaagan? fikirkii halkiiba go-aanka yuu ku gaaray. dhammaan asagii iyo Sheekh Maxamuud oo waqtigaas noolaa iyo dhammaan dadkii muhiimka ahaa ee joogay go-aankii sidii baa loo qaatay. marka inay dhalinyaradu waxa lala soo maray iyo taariikhdaas quruxda badan inay dareemaan waa muhiim. waxaan rabaa marka oo madashaan aan uga faa'iidaysanayaa dhammaan jaariyaddii deegaanka ee nagu soo dadaashay inaan si babliga halkaan aan u dhaho waad mahadsantihiin. waad nagu soo dadaasheen, waqti baad na geliseen inaan maanta yeelano mustaqbal ifayo qurux badan bacda allahi subxaanahu wa tacaala. adinkaa sabab u ahaa, waad mahadsantihiin. waxaadna ku bishaaraysataan tacabkiinni iyo dadaalkiinni wuu guulaystay. boqolaal dhalinyaro ah oo heerarka jaamacadaha heerka koowaad iyo kan labaad iyo kan saddexaadba maanta dhameeyey, kulliyado kala duwan dhameeyey ayaa maanta joogo oo deegaankaas ku abtirsado. marka waad mahadsantihiin. intaas haddaan kaga baxo mahadcelintaas, tusmo waxa ay tahay waxaa caddeeyey guddoomiye xuseen. tusmo waa madal 4 sano ka hor la aasaasay. fikirkeeduna wuxuu yahay dhalinyaradaas aan sheegay ee boqolaalka ah iyo dhammaan deegaan weynaha diiraro dhalinyarada ku nool inay mideeyaan maankooda iyo maalkooda kadibna ay ku celiyaan deegaankoodii. maadaama lagu soo dadaalay waa inay ayaguna dadaalkii ay dadkii ka dambeeyey ay ku celiyaan. waxa ay u dhisan tahay tusmo waa sidaas. go-aankeeduna waa go-aan dhab ah oo ka laabasho aan lahayn. inta hadda ku midaysan waxay ballan ku wada galeen in barnaamijkaas in horay loo sii wada ma ogiye marnabo aan laga caajisin, aan laga daalin, hore u socod la isku ballansado. waxaan rajaynayaa tusmo inay noqon doonto dadkii soo shaqeeyey iyo odayaashii kuwii kala wareegi lahaa mustaqbalka deegaanka. oo hadda wixii ka dambeeyo hadday tacliin tahay, hadday caafimaad tahay,
haddii wax alla wixii horumar loo baahan yahay in dhalinyaradu meel kastoo joogaan ay u midoobi doonaan ay isku kaashan doonaan dhammaantoodna ay u istaagi doonaan ayaan rajaynayaa waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo tusmo Nairobi bas ma ahan waxay hadda maraysaa Nairobi Garissa South Sudan waxa kale oo xiriir aan la sameeyay jaariyad ka dhisan Canada oo ayaguna fikirkan nala soo dhaweeyay dhammaan waxay gaari doontaa meel walba oo dhalinyarada ay joogaan waxaan marka ka rabnaa in dhalinyaradu ay u diyaar garoobaan in dadkoodii deegaankoodii ay ku celiyaan fikir wanaagsan arrinkaas qof walba oo aqli u saaxiib ah inuu soo dhaweyn doono ayaan rajaynaynaa dhammaan inta halkan joogto oo awal fikirka uusan gaarin ayaguna hadda waa inay maqlaan fikirkaas wixii ay ku dari karaan oo talo iyo tusaalo iyo maskax iyo maalba waan uga baahannahay tusmana intay rabto waa intaas waa in dadkii iyo deegaanka isku xirto oo sida uu gudoomiyo sheegay Umar waa in deegaankii lagu laabto oo deegaankii mustaqbalkiisa laga fikiro oo deegaankii aan laga wada tagin inta badan dadka hadda way soo baxeen laakiin mustaqbal dheer ma noqon karta taas mustaqbalku waxa weeye qof walba deegaankiisa wax ku yahay deegaankeenna inaan ku laabanno sidii aan ooga dhigi lahayn mid horumarsan aan ka fikirno annagay na sugaysaa dhammaan marka intaasaan isku dardaarmaynaa waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh